السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبه ونكسن داود يلالكن وحلقا ورarka kuna soo dhawaada wararkeena qodobadan oo caawa ku soo qaadi doono wararkeena waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay guux xogan oo caawa ka taagan magaalada Muqdisho kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in taliyihii la dagaalamay ciidamada Itoobiya habeen saqbar ah dagaal ka dhacay degmada Dolow oo taliyihii Shiiqaalo lagu magacaabo ahaana taliyihii nisay degmada Dolow oo la soo warinayay in caawa magaalada Muqdisho lagu xiray haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay xogta xariga ninkan oo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan macluumaadkii iyo xogihii ugu dambeeyay wax walba ugu baahan tahay ayaanu idin soo gudbin doonaa qodobada kale aan idin wadaagi doono wararkeena ku daawo doontaan waxa kamid ah macluumaadkii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya oo si lama filaan ay isaga fogeysay dagaalkii maanta ka dhacay degmada Beled Xaawe ee gobolka Gado sheegtana in duulaanku ka yimaaday xagga Jubbaland haddaba war saxaafadeed aad loola yaabay oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya isla markaasina ku gidaaman dagaaladii ka dhacay degmada Beled Xaawe maanta ayaanu idin soo gudbin doonaa wasaaraddan uu hogaamiyo wasiir fiqi maxay ka tiri dagaalka maxay tahay eedeymaha yaab kale oo ay u jeedisay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sidaadan wararkeena ayaanu idinku soo gudbin doonaa taliska ciidanka militariga Soomaaliyana waxa uu fariin kulul u diray dawladda waddanka Kenya isagoo uga digayo in ciidankii Jubbaland ay u baxsaday dhinaca xuduudda inay soo dhiibto sidoo kale tan ciidankaas gaadiidka ay wateen oo qayb ka ah gaadiid ay ku buufsan tahay calaamada booliiska Soomaaliyeed inay iska soo dhiibaan haddaba taliye sare oo ka tirsan ciidanka dawladda ee jooga gobolka Gado arintani ka hadlay ayaanu idin soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin heynaa fadlan daawada adeeta saaxiib nagu cusub nagu soo biir adigoo subscribe saaranaya barteena YouTube kor kubanayo wararkeena iyo dhacdooyinka xisaalan gorol halkan ku soo baahino waa hagaag aan ku bilaawno wararkeena caawa wararkeena waxaan ku bilaabi doonaa wararkii macluumaadkii ugu dambeeyay guux xogan oo ka dhashay warar saacadii la soo dhaafay si weyn ugu faafay baraha bulshada kaasi oo ku aadan xariga taliye Shiiqaalo oo ahaa taliyihii hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee degmada Dolow kaasi oo horaan ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya intay ka afduubteen degmada Dolow ay gudaha ugu la galeen dalka Itoobiya kadibna mar dambe la soo tarxiilay oo degmada Dolow laga soo tarxiilay Muqdisho la keenay isagii ciidankiisa oo faramaran haddaba wararkan oo markaasi laga helay ila kala duwan ayaa waxay ku waramayaan in ninkan la xiray kadib markii qoraal uu ku qoray bartiisa Facebook uu ku sheegayo in aysan dhalinyaradu ku dhiman dagaal oo aysan waxba ka faa'iidi doonin taliye Shiiqaalo ayaa sidaasi mareegtiisa ku soo qoray ayaa la yiri haddaba qoraalkiisa ayaa waxa uu ku xusay in dad horay naf iyo maalba ugu horay aysan helin xurmo sidaasi darteedna uu ku boorinayo ciidamada Soomaaliyeed haddii ay noqon lahaayeen kuwa deegaanka in aysan naftooda halis u gelin sida laga soo xigtay ilo ku dhow arintan ayaa hadalena xoog la abuurtay hadalkan ayaana waxa loo arkay dhaleeceyn toos ah oo ku wajahan dawladda iyo dagaalada ka socda degmada Beled Xaawe oo uu taliyuhu u jeedinayo dhinacyada u dagaalamayo jalan iyo kooxdiisa haddaba arintan ayaa la sheegay inuu sababsaday laakiin warbaahinta xulka ma xaqiijin karto haddii ninkan caawa uu xabsi ku jiro ila kala duwan ayaa si weyn arintan u hadalayo warka ugu weyn ee mareegyada bulshada ku kulanta lagu hadalayo caawana waxa uu yahay in ninkan xabsi uu ku hoyanayo caawa warkii ugu dambeeyay ayaa sidaas ku waramaya haddaba ninkan dadkan aqoonin haddaan u sharaxno waxa uu ahaa taliyihii nabadgelyada ee degmada Dolow ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu gacanta ku hayay kaydka hubka ee dawladda ee degmada Dolow dawladda waddanka Itoobiya ayaa weerartay hubkiisii halkaas ayay ku gubtay dagaal socday ilaa iyo in ka badan 6 saacadood oo xiriir ah oo habeen saqbar ahayd ayuu la galay ciidanka Itoobiya ugu dambeyntii isagii ciidankiisa waa laga itaal roonaaday gacanta ayaa lagu dhigay ciidanka Itoobiya ayaa xuduudda kala gudbay waan ay sameeyeen odayaasha dhaqanka ee degmada Dolow ayaa ninkan lagu soo daayay waxaana la go'aamiyay ugu dambeyn in la soo masaafuriyo marka Muqdisho ayaa la keenay ninkii la dagaalamay Itoobiya xawadkan u dhigtay inuu difaaco sharafka ciidanka qaranka Soomaaliyeed in la xiro ayaa ay tahay waxa ugu weyn ee ay dadweynaha Soomaaliyeed ay hadal hayaan gaar ahaan dhalinta wax ku qorto baraha bulshada ee inta badan ka soo jeeda gobolka Gado haddii ay noqon lahayd aqoonyahanka iyo foolaadka haddaba sidee aad u aragtaa aragtida qodobkan ku aadan hoos ugu reeb fiiro gaar ah warbaahinta xulka ma xaqiijin kartaa haddii ninkan caawa uu xabsi ku jiro
artaad ku aadan hoos ayaa nagu reeb kartaa warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jira haddaan fiirino dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay iska fogeysay inay dagaalkii maanta ka dhacay degmada Buulaxaawo ee gobolka Gadeer ee Soomaaliya inay iyadu ay qaaday inkastoo wararka aan helnay ay sheegayaan in dagaalkaas uu ahaa mid ay dowladda Soomaaliya qaaday isla markaasina ay ku weerartay goob ay isku urursanayeen ciidanka Jubbaland haddaba dowladda federaalka Soomaaliya oo caawa war-saxaafadeed rasmi ah ka soo saartay dagaaladii maanta ka dhacay duleedka magaalada Buulaxaawo ayaa ay dowladdu isaga fogeysay inay iyadu weerar ay ku qaaday ciidanka maamulka Jubbaland ee joogay duleedka magaalada Buulaxaawo haddaba war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka qaranka ee ka howlgala gobolka Gado ay iska caabiyeen weerar ay soo qaadeen ciidamada taabacsan Axmed Madoobe waxaa lagu yiri war-saxaafadeedka aroornimadii hore ee saakay maleeshiyaad ka amar qaatay eedeysan Axmed Madoobe uu hogaaminayay Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxay weerar gardara ay ku qaadeen fariisimo ciidanka qaranka ay ku lahaayeen duleedka magaalada Buulaxaawo ee gobolka Gado marka arintan waxa ay u dhigan tahay ciidanka dowladda weerarka ma qaadan ee iyaga ayaa lagu soo qaaday wasaaradda gaashaandhiggu waxay sheegtay in ciidamada taabacsan dowladda federaalku ay guulo ay ka gaareen iskana caabiyeen weerarka isla markaasina ay gacanta ku dhigeen tobannaan ka mid ah ciidanka weerarka soo qaaday haddaba dowladda Soomaaliya waxay sidoo kale warka ku dartay in askar ay kaga dhaawacantay weerarka kuwa kale tan ay kaga geeriyoodeen wasaaradda gaashaandhiggu waxay shaacisay in dagaalkan dhinacoodu ay ku geeriyoodeen laba xidigle Maxamed Xasan Guutaale iyo Dable Cali Maxamed Gooni iyaga oo dowladdu ay sidoo kale sheegtay inay dhaawacmeen 3 askari oo kale halkaas oo wadartu isku noqonayso 5 askari laba dhimasho iyo 3 dhaawac tiro kale intaas ka baxsan maysan xaqiijin laakiin ila madax banaan oo aan la hadalnay waxay sheegayaan in tirada khasaaraha intaas ay ka badan tahay dagaalkana ay qaaday garabka dowladda Soomaaliya oo ka wareyshay qorshe ay doonaysay Jubbaland inay magaalada Buulaxaawo ay biyaha kaga jirto sidaasina jaran iyo ciidankiisu ay kaga hortageen haddaba gudoomiyaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxay ugu baaqday Jubbaland iyo ciidamada taabacsanba inay hubka dhigaan iskuna soo dhiibaan garabka dowladda artaad ku aadan qodobkaas hoos ayaa noogu reebi kartaa daawade warbixinada ugu dambeeya wararkeena noo soo qabanaya markaan waxaan eegaynaa warbixin ku saabsan taliska ciidanka militariga Soomaaliya uu soo jeediyay dowladda waddanka Itoobiya in hubkii gacanta u galay markaasi ay la baxsadeen ciidankii firxadka ahaa ee Maxamuud Sayid Aadan oo hub dowladeed ah inay iska soo wareejiso abaanduulaha qaybta 43aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya ayaa dowladda Kenya ugu baaqay inay ku soo wareejiso gaadiidka iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed ee gudaha u galay magaalada Mandheera isla markaasina baxsadka ka sharciga haddaba waa kan abaanduulaha oo arrimahaasi ka hadlayo bal ila daawo muuqaalkiisa dhammaan ciidamada qalabka sida ee saaki howlgalka ka galay degmada Buulaxaawo oo ay ka taganayaan shaqooyin baahsan oo bulshada u keenay barakac iyo dhibaato ku guuleystay maanta inay ka dulqaadaan dhibaatadii shacabka Soomaaliyeed ka haysatay muxuu ahaa degmada Buulaxaawo taas oo Ilaahay lagu mahadiyo kulay waxaan ka tacsiyeynaa wixii ku dhintay xaq iyo xaqaba wixii xaqan ka dhintay ciidamada qalabka sida iyo wixii ka dhintay qolada kale oo annaga isla ahayn oo marin habaabis ay ku dhacday in ay dalkooda iyo dadkooda si qaldan loo adeegsado ayadoo loo adeegsanayo magaca Jubbaland deegaanka oo dhan baa Jubbaland ah waa dad Soomaaliyeed waa state Soomaaliyeed waa state muxuu ahaa ka tirsan federaalka wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhaawacmayna Allah u boogadhayo intaas dowladda Kenya anigu abaanduulaha qaybta 43aad dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladda Kenya waxaan ahay dowlad aan darisnahay weeye dowlad aan in badan daris Ilaahay naga dhigay weeye waxaan ama leenahay annagu saaki waan arkaynay markii xuduudda ciidanka soo tallaabay dhaawaca ay ciidanka ay ku haystaan way muuqataa muxuu ahaa meesha ay ku dhayayaan way muuqataa markaan soo istaagnay borderka istaagnay waxay wataan waa qalab ciidan gaadiidka ay wataan iyo hubka ay wataan ee ciidanka waxaan rabaa in loo soo celiyo annaga waa u soo celinaa haddii qori laga soo qaato haddii gaari ka soo galo haddii shacab waa soo celinaa celin baa naga dhexaysa
sida ugu dhaqsaha badan waxaan ka codsanay inay noo soo celiyaan dowladda Kenya ee wanaaga ilaaliso wada noolaanshaha ilaaliso wada jirka ilaaliso taas ayaan leeyahay hadda ka bacdi waxaan ugu digaynaa dowladda Kenya in mar dambe la isticmaalo borderka u dhow ee haddaba ay cagafta xaggooda kaga timid nimankaas ay ku qoteen meesha ayaga ay u qodeen dhufayska arko taranjayga loo qoday dowladda Kenya waxaan leenahay waa in ay ka fiirsataa inay mar dambe hagardaameyso diris wanaaga iyo wada noolaanshaha naga dhaxay gaar ahaan ciidanka aniga khuseeya ee militariga ee Kenya ee hadda aan ilaahay aniga muxuu soo celin mahayna ragga muxuu gaadiidkaygii iyo ciidankaygii waxaan leeyahay ii soo celi gaadiidka ciidanka waa ciidankaygii waa dadkaygii waxba uma dhimayno annaga wada dhalanay annaga isleh doo celiyo haddii la soo celin waayo dad wanaag la dhawayn waayo haddii xaq baan u leeyahay inaan soo qaato oo dagaal la dhaxmaro taas sababta adiga ayaan mali waa ka astakaway arinta ayada ciidankaygu waa diyaarsan yahay wuxuu u diyaar yahay inuu tiknikada baabuurta aniga iska leeyahay calaamadda dawladda la aragteen inaad noo soo celiso maasantiin gudaana qaybtan caawa intaas ayaan ku soo meeraya nabadgelyo